markaan badda ka soo baxno oo kale oo Yemen aan tagnay Yemen ilaahay sama uu nagu geeyay hal maalin halaaweena u soconay alla waxaan dhaa gogasheedii fiicneed aan ka soo tagay iyo hadda dhibkaan alla maxaa ii soo wadaa niyada ka dhahan dhib waaba ii dhiman yahay maba ogibo waan soo imaaday ninka carabki wuxuuna saaray haddaad u taqaanid hilokis gaari hilokis ama qooqan waxaa u taqaaniin gaarigaasuuna saaray anagoo badda dhammaan meel kastaa joogtiin kusoo dhawaada diiwaan show haddaad ku cusub tahay subscribe saaro leega waxay noo tahay dhiirigeliye waxaan leeyahay meel kastaa joogtiin dhammaan ummadda muslimiinta waa idin salaamayaa waxaan idiin soo bandhigi doonaa barangiyaal waxyaabo badan aad iyo aad idinkaga qosliya aniga waxaan joogaa Sacuudi Arabiya waa qaybta Sacuudi Arabiya diiwaan show qaybta xamar waa Maxamed Xasan Diinle waxaan idin leenahay meel kastaa joogtiin dunida kusoo dhawaada aniga waxa iigu la yaabadneed marka ugu horeysay aan soo tahriibaye hooyaday way diiday waxay tiri ma tahriibaysid wax alla waxa u baahan tahay anaa ku siinaayo iska joog aniga waa madax adeegay waan soo baxay markaan soo baxay ugu horeynta markaan Boosaaso imaado waxaan arkay ciidan la dhaho ciidan oo Boosaaso joogo ciidankaas oo diidayo hotel waxaa nagu geliyay anagoo 21 gabdhood oo Soomaali markaan soo baxnay kadib oo badii xeebtana la keenay waxyaabo badan aan aragnay Ethiopian ur badan oo kaalada ka soo shiireyso Ethiopianka ee doontana la saaran markaan badda ka soo baxno oo kale oo Yemen aan tagnay Yemen ilaahay sama uu nagu geeyay hal maalin halaaweena u soconay ninkii muharrib nin Soomaaliya aan ii imaanaya la dhahay nin Soomaali nooma imaanno nin carab aan noo imaaday ninka carabki wuxuuna saaray haddaad u taqaanid hilokis gaari hilokis ama qooqan waxaa u taqaaniin gaarigaasuuna saaray anagoo badda ka soo baxnay aan qarqaryooneyno gaariga waxaan ka saaray qaybta dambe saan u soconay habeenkii saa u soconay meel oo guriga oo muharribka wax yar u jira nala geeyay markii muharribkina nala geeyay guri cid carbeed nala geeyay musqul hataa kuma taasho moora ari kasoo horjeedkeeda meel barxad oo dhagaxman shub ku daadsan yihiin alla waxaan dhaa gogasheedii fiicneed aan ka soo tagay iyo hadda dhibkaan alla maxaa ii soo wadaa niyada ka dhahan dhib waaba ii dhiman yahay maba ogibo waan soo baxay 12 beri joogay Yemen ninkii muharribka lacagtiisa loo shubay waan soo baxay meel waadiga la dhaho qofkii yaqaana aan maanay oo hal jiingad bas ka dhisan oo wiilasha iyo gabdhaha dhinacay kala jiifanayaan rafaad badan ilaahay amarkiisa waxaa dhacday markii dambe inaan buuro la eg dabaq inaan ku socono 6 saac oo habeenkii iyo 6 saac oo galab waa 12 saac aan ku soconay kadib waana la waday hotel ana la geeyay darab ku yaala hotelkii aan laga waday saas ee tahay adigoo haddana rafaadka dad badan aniga 40 qofood ay ahayn 12 qofood ka badbaaday kulli waa la qabtay asbaabta lagu qabtana waxay ahayd calaashaan qofka horta ilaahay ceeshkiisa ka qor uu ka ceeshaa markaad soo bixido kale ciidaha carabta af carabi ma kasaysid af carabiga adoona ka sayid way gumaysanayaan marka lagu dhahayo wax ma kasaysid camal shaqaalo fiican maaha aniga horta aadaan u maskax furnaa warkooda waan dhagaysan jiray waxay dhahaan waxaan dhihi jiray dayib aan ka maqlay gabdhaha aan isla joogno waa iskaga sabri jiray 2 bilood markaan soo shaqeeyay ciidaas waan ka soo dagay cid kale ilaahay ii saaray ciidiyaana ilaa iyo hadda u shaqeynaya hadda ka soo dagay marka carabta waa dad muslimiin laakiin waa dad aad u naxariis daran waa wadanka aad u naxariis daran aniga wallaahi markaan dalkayga ka soo tagay waxaan u maleynayaa inaan nimco u soo socdo waxaa lagu leeyahay lacagaa laga soo doonaa lacagta dheedheel laguma keeno yaa lagu soo sirnaa lagu dhiilaayo haddaad subscribe wax walba noo saara waxaa idin soo gudbin doonaa barangiyaal waxyaaba idinka qosli wax walbaad jeceshihiin insha allah diiwaan show subscribe like commentiga iyo wax walba oo qisooyin